فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني. أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، walalayaal khudbadeenu waxay ku bilaamatay isku dardaaranka aynu isku dardaarmayno ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo taqwadiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. war kuwa iimaanka laga helayow, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka cabsataan cabsi dhaba. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada. walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun, hana soo dhimanina ilaa idinkoo muslimiina ma ahaane. cabsidaasi walaalayaal waxay keenaysaa qofku inuu aakhirana ku liibaano, adduunkana uu ku liibaano. ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirta uu ina amray ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanada inagaga dhigay waxaa ka mid ah ilaalinta la ilaalinaya ubadka iyo mas-uuliyadda cidda aad ka tahay. nicamta waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka ugu nimceeyey waxaa ka mid ah nicmatu lawlaad. awlaadda nimcadooda ayaa ah nimcooyinka ugu waaweyna ilaahay subxaanahu wa tacaala qof bini aadana uu ku manaysto. waana su-aal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiin doono qof kasta oo nimcada ilaahay uu siiyey. nimcadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisaa lagugu weydiin doonaa. jawaabta aad ka bixin doontaana waxay ku xidhnaanaysaa sidii adduunyada markaad joogtay aad u camal fashay ee waajibka aad uga soo baxday. nicamtaas walaalayaal, awlaadu nimcadooda waxaa tilmaamaysa in adduunka intaad joogto awlaaddu ay kuu tahay nimco oo ay qurux kuu tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati addunya. xoolaha iyo ubadku waa qurux, adduunyada ayay qurux ku yihiin. adduunyada intaad joogto ubadkaaga wuxuu kuu noqonayaa qurux. qabriga markaad gasho wuu kugu intifaacayaa, markaad aakhiro tagto wuu kugu intifaacayaa. adduunka intaad joogto haddii aad ku tarbiyadaysay diinka iyo akhlaaqda aad ku tarbiyadaysay, wuxuu noqonayaa ilmo waajibkii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray aad ku lahayd ilmo garta ayuu noqonayaa. aakhiro markaad tagto qabriga aad tagto oo aad dhimato oo qabriga lagu geeyo, waladkii saalixa ahaa ee markaad adduunyada joogtay aad si wanaagsan u tarbiyadaysay, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu anfacaya. oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: insaanku hadduu dhinto camaladiisa oo dhani way go-ayaan ilaa 3 camal maahaane. 3daa camal waxaa ka mid ahaa waladun saalixun yadcuu lah. walad saalixa oo u soo duceeya, camalkiisu ka go-i maayo. qabrigaaga adoo ku jira ayay kugu imaanaysaa. markaasuu odhanayaa nimcadani xagga iga timid, yacni waasican qabriga la ii waasiciyey xagga iga timid.
markaasaa lagu odhanayaa waladkaagii saalixa ahaa ee markaad adduunyada joogtay si wanaagsan aa u tarbiyadaysay ayaa kuu soo duceeyey. aakhira markaad tagto oo bacdiga la yimaado, waalidkii ilmihiisa diinka baray oo qur'aanka baray, maalinka qiyaamaha taaj baa loo xidhaya labadaa waalid. oo axaadiistu waxay inoo tilmaamaysay walaalayaal, waalidka ilmaha qur'aanka bara oo qur'aanka xifdu siiya, maalinka qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala taaj nuura ayuu labadiisa waalid u xidhayaa. adduunka intaad joogto wuu ku anfacayaa ilmahaagu haddaad si wanaagsan u tarbiyadayso. markaad qabriga gasho wuu ku anfacayaa oo ducadiisaa ku soo gaadhaysa. markaad aakhiro tagtana wuu ku anfacayaa oo yacni wanaaggii aad fartay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu karaamaynaya diinkii aad bartay. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo ina amraya in aynu nafaheenna iyo ehelkeennaba naar ka ilaalino, wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. war kuwa iimaanka laga helayow, marka hore nafihiina naar ka ilaaliya. halkaa waxaa inoo tilmaamaysaa walaalayaal in waalidku uusan waxba naar ka ilaalin karayn oo ilmaha uusan naar ka celin karayn haddii isagu uusan wanaagsanayn. oo in waalidku markuu noqdo waalid dhowrson, waalid ilaahay subxaanahu wa tacaala u hoggaansan, ayuu ilmaha wax amri karaa oo xumaanta uu ka qaban karaa. laakiinse waalidku hadduu xumaantii isaga ilmaha uga horreeyo, arrinkaa waxaa adkaanaysa in ilmihii uu noqdo ilma waxa waalidku faray qaata. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. war kuwii iimaanka laga helayo, marka hore nafihiina naar ka ilaaliya, ubadkiina naar ka ilaaliya, ehelkiina ka ilaaliya. ehelkaaga waxaa ka mid a cid kasta oo aad mas-uuliyaddooda adigu qaadayso. su-aalna waa lagaa weydiin doonaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa maalinka lagu istaajiyo ee acmaashaada la miisaamayo ee su-aalo lagu weydiinayo, su-aalaha waxaa ka mid noqon doonta mas-uuliyadda cidda aad qaaday ee ubadkaaga ahaa ee xaaskaaga ahayd, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku weydiin doono. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciy. ayaa la weydiinayaa. ninka waxaa la weydiinayaa, ehelkiisa ayaa la weydiinayaa. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku weydiinayaa ehelkii iyo ubadkii aan ku siiyey, ciddii aan mas-uuliyadda yacni kugu dhiibay, sidii aan rabay ma uga soo baxday baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku odhanaya. jawaabta maalinka aad bixinayso ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa markaad taagan tahay waxay noqonaysaa maanta markaad adduunyada joogto sida aad u camal fasho, ubadkaaga u tarbiyadayso, ehelkaaga uga fekerto ayaad maalinkaa ku jawaabi doontaa. nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrinkaa uu inoo su-aashaasaa lagu weydiin doonaa addoonow, jawaabteeda maalinkaa diyaari. su-aal baa lagu weydiin doonaa, jawaabteeda diyaari buu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya. walaalayaal wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni mawluud kastaa oo dhashaay in uu ku dhasho fidrada islaamnimada inuu ku dhasho. ilaahayna subxaanahu wa tacaala abuurka uu ku abuuro bilaadan kastoo dhashaay. laakiin labadiisa waalid ayaa ka dhiga yuhuudi ka dhiga ama kiristaan ka dhiga ama qof muslina ka dhiga. haddaba waalidow waxaad noqonaysaa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu rabay ilmihiisa ka dhiga oo amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala faray ee qaabkii la rabay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku amray ilmihiisa u tarbiyadeey. ilmaha diinka in la baraa waxay sababaysaa ilmuhu inuu ilaahay garto, xaqa waalidku ku leeyahay uu garto, ilmahaasi uu noqdo ilmo hagaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hanuuniyaa. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi muruu awlaadakum bisalaa wahum abnaa'u sabca. awlaaddiina waxaad amartaan salaada amra, iyaga oo 7 jira salaada amra. wadribuuhum ku garaaca buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi, garaac aan dhibaataynan oo aan barinin oo dhib u keenayn ku garaaca oo ku cabsiiya in ay salaada la yimaadaan marka ay 10 sano ay gaadhaan. furaashta yacni madaajica iyo meesha ay seexanayaanna u kala fogeeya ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxay tilmaamaysaa arrinkaasi walaalayaal in looga digayo oo ay diinkuina amrayso akhlaaq wanaagsan ilmaha in lagu tarbiyadeeyo, oo ilmaha xumaan intuu ku dhici lahaa wanaag loo horseedo oo meel gaara la geeyo, naftiisana cifaafi iyo dhowrsoonaan uu ku tarbiyadeeyo. waqtigan aynu ku jirno walaalayaal waa waqti aad iyo aad u adag. dhulka aynu joognaa waa dhul aad iyo aad u adag oo dhul gaalo ah. waxaa kaliya ilmuhu uu ku hagaagayaana waa ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa in la baraay.
ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa uu ku leeyahay marka aad barto ilmahaaga oo aad barto ilaahay xuquuqda uu ku leeyahay ayuu ilmuhu garanayaa xaqa aad ku leedahay. waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu xuquuqda uu ka hadlayey waxa uu ugu horreysiiyey waa xaqa uu leeyahay, wuxuu ku xujiyey xaqa uu waalidku leeyahay. waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana. ilaahay wuxuu xukumay in isaga mooyaane cid kale aan la caabudin oo cibaadada isaga loo gaar yeelo. kadib buu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xujiyey waalidka xaqiisa ha la ilaaliyo, xaqa waalidka ha laga soo baxo. arrinkaasi wuxuu inoo tilmaamaya walaalayaal, ilmaha diinka marka uu barto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa uu ku leeyahay la baraayi waxay sababaysaa waalidka xaqiisa inuu barto. dhulka aynu joogna walaalayaal fasahaadkaasuu leeyahay. ilmaha waktigiisa badan waxaa qaata nin gaalaa qaata, waxaa waxbara nin gaalaa waxbara. diin ma baraya uu gaal, wuxuu barayaa wuxuu isagu yaqaanee diin ahayn buu barayaa. waxaa keliya laakiin uu ku hagaagi karaa waxa weeyaan ilmahaaga adigu inaad la saaxiibto oo diinka aad barto, adigu aad wanaagsanaato, adigu aad dhaqan wanaagsan aad u horseedo. ilaahay subxaanahu wa tacaalana arrinkaas ayuu ku weydiinaya. kuma weydiinayo ilmahaaga maxaad adduunye u siin weyday, kuma weydiinayo ilmahaaga maxaad wuxuu cuna u siin weyday. waxaa keliya lagu weydiinaya waxa weeyaan aakhiradiisa ma hagaajisay, adduunyadiisa waxba lagaa weydiin maayo. adduunyadiisa inaad xaqiisa yacni adduunye aad u guddaay waa mid waajiba weeyaan, laakiinse waxa bal awlaa ah oo ka weyn waxaasoo dhan diinkiisa iyo aakhiradiisa inaad u ilaaliso. ilaahay subxaanahu wa tacaala awlaadda ha hagaajiyo, wanaagoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku shubo. اللهم أصلح أولادنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بأمر عظيم بادئا بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي وعن صائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي